بسم الله الرحمن الرحيم وعنو wanaagsan qayaarta wadayga daawanaysa ku soo dhawaada wararka caalamka kuwoodii ugu dambeeyay oo dadaan kale ka daawataan page-kan waa 22 bisha Afraad 2026 muqaalareedkan intuu soconay adoya beedmo waxaad ku maqli doontaan Iran oo qabsatay laba markab oo marayay marinka Hormuz haddaba xagee ayaa la aaday labadaas markab intaan ku soo gudbin fadal muqaalka leega saar oo sheer garay aynu ku bilownay saaxiibayaal Iran ayaa maanta Arbacaha la wareegtay gacan ku haynta laba markab oo marayay marinbiyoodka istiraatiijiga ee Hormuz taasi oo sii xoojinaysa awoodda gacan ku haynta marinka Hormuz alla awood leh marinkan kadib markii madaxweynaha dalkaasi Mareykanka oo hakiyay weeraradii la qorsheynayay muddo aan la cayimin iyadoo muuqata wax calaamad ah oo muujinaya in dib loogu laabto wadahadallada nabadana ay si jirin dhanka kale wakaaladda wararka ee Taysim oo janjeerta dhanka dawladda Iran ayaa sheegtay in ciidamada badda ee kacaanka ay qabteen laba markab oo ku xadgudbay dhanka badda sida ay sheegeen ayna u kaxeeyeen dhanka xeebaha Iran taasi oo markii ugu horeysay noqonaysa Iran inay qabato maraakiib tan iyo markii uu dagaal ka qarxay dabayaaqadii bishii Febraayo 28 goorsii horeysay hay'adda amniga ee badda Ingiriiska ayaa soo warisay in 3 markab oo hamuul ah ay rasaas lagu furay waa sida warka loo dhigay dhanka kale madaxweyne Donald J. Trump ayaa bayaan uu goor dambe oo Talaadadii soo saaray una soo dhigay baraha bulshada ku sheegay in Mareykanku uu aqbalay codsi kaga yimid dhexdhexaadiyaasha Pakistan ay ka mid tahay una sheegay inuu hakiyay weeraradii dhanka Iran lagu qaadi lahaa inta ay madaxda Iran iyo wakiiladoodu la imaanayaan qorshe midaysan oo ay wada hadallada ku soo gabagabeynayaan waa sida warka loo dhigay balse inkasta oo uu ku dhawaaqay wax muuqda kordhin xabad joojin oo hal dhinaca madaxweyne Donald J. Trump ayaa sidoo kale sheegay in uu sii wadi doono godoominta ay ciidamada badda ee Mareykanku ay ku hayaan ganacsiga badda Iran waa sida warka loo dhigay Mareykanka ayaa sidoo kale rasaas furay isla markaana qabsaday markab xamuul ah oo Iran ay leedahay oo marayay maalintii Sabtiga ahayd wuxuuna dusha ka fuulay markabkaas shidaalka oo aad u weyn alla awood leh oo laga leeyahay dalka Iran oo marayay marinbiyoodka Hormuz Iran ayaa godoominta Mareykanka u aragta ficil gacan qaad ah iyo dagaal waxayna sheegtay in aysan qaadi doonin xayiraadda saaran marinbiyoodka istiraatiijiga ee Hormuz taas oo dhalisay qalalaase dhanka tamarta ah ee caalamka inta ay godoomintu jirtana halkaas ay xirnaan doonto dhanka kale dawladda Pakistan oo weli riixaysa wada hadallada u dhaxeeya Mareykanka iyo Iran dalka Pakistan ayaa door dhexaad ka ciyaaraya xiisadda ayaa weli isku dayaya inuu miiska wada hadallada iskugu keeno inkastoo ay dhinacyadu ay ka aqbaleen xabad joojinta ama baaqa ay u soo jeedisay oo ahaa mid xasaasi ah ayaa Talaadadii loo balansanaa ka hor inta aysan dhammaan xabad joojinta labada toddobaad ahayd saaxiibayaal waxyaalihii dambe ee ka soo cusboonaada muuqaalada kale ayaad ku daawan doontaan fadlan muuqaalkan sheer garay oo u geey cid u baahan leega iyo sheerkuna dawaa xaqiina wax kale oo cashuura idin kama qaadi leen page-ku nabaday